iyadoo muddooyinka ugu dambeysay magaalada Addis Ababa caasimada dalka Itoobiya oo ku xiraa fanaanka weyn ee Qadar Maxamed Ibrahim Keyo kaasoo laga qabtay garoonka diyaaradaha ee Boole Mikael. Qadar Keyo ayaa muddooyinka ugu dambeysay ku xiraa xabsi ku yaala magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya. warar hoose oo aan helina ayaa sheegayo in xildhibaanka ku matala baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan aqalka sare oo yahay Xaaji Muuse Suudi Yelxo inuu haatan wada dadaalo lagu soo deenayo fanaanka. Xaaji Muuse ayaa kulamo la yeeshay qaar ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda nabad iyo nolol kaasoo ka doonaya sidii loo soo deen lahaa fanaanka. Xaaji Muuse Suudi ayaa la sheegay inuu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya Cawad sidii arrintaasi loo dadajin lahaa isla markaa fanaanka loo soo deyn lahaa. Xaaji Muuse ayaa la sheegay inuu la kulmay arrin uu ka filayno wasiirka arrimaha dibadda kadib markii loo sheegay in uu Qadar Keyo oo qura uu ku xiray magaalada Addis Ababa balse maxaabiista ku xiray Addis Ababa dhawaan la keeni doono. wasiir Cawad ayaa si jees ugu sheegay Muuse Suudi Yelxo in boqolaal qofood oo Soomaaliya ku xiran yihiin xabsiyada dibadda isla markaana uu dadaal u galo sidii loo soo deyn lahaa dhamaantooda. Qadar Keyo ayaa muddooyinka ugu dambeysay ku xiraa magaalada Addis Ababa caasimada dalka Itoobiya iyadoona weli aan laga hadlin xabsigiisa. balse wixii ku soo korna wararkeena dambe ayaad kula socon doontaan balse subscribe tiksaar si aad wararkeena aad mar walba nagala socotaan kuwii hore ee subscribe na saarana way ku maasan yihiin.